waa maalintii labaad ee ololaha doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka oo si habsami leh uga socda dalka waxaana maanta cududiisa taageero soo bandhigayay xisbiga muxaafidka ah ee Kulmiye kumanaan ka mid ah taageerayaasha murashaxiinta xisbigaasi ayaa goor horeba iska soo xaadiriyay fagaaraha khayriyada magaalada Burco wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo horkacayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa qayb ka ahaa dabaaldega iyo muujinta cududda taageero ee xisbiga muxaafidka ee Kulmiye kuleeyahay gobolkani Togdheer qaar ka mid ah murashaxiinta iyo gudoomiyaha xisbiga Kulmiye ee gobolka Togdheer oo la hadlay taageerayaashii kala duwanaa ayaa uga mahadnaqay sida mugga leh ee ay u muujiyeen cududooda taageero maanta waa maalin farxad weyn inoo ah guud ahaan Soomaaliland gaar ahaan xisbigeena Kulmiye waa maalinteennii ugu horeysay ololaha waxaynu joognaa fagaaraheennii Tahriir waa soo buux dhaafiseen waxaa muujiseen taageeradiinna guulaysto Soomaaliland ha guulaysato Burco ha guulaysato Kulmiye horuu sharibnaa magaciisa shariban ragii maalinta ka soo saaray meel bannaan bay ka soo saareen maanta musharaxiintiina halkan u tartamaysa waxa ku faantaan baa haysataan oo tacab oo laydin sameeyay soo xulay waa rag xula waa rag wax qabadka degmada Burco loo soo xilay horumarka iyo nabadgelyada Soomaaliland aynu adkaysano anu waxaan ahay jiilkii saddexaad ee Kulmiye haddaad maqli jirteen dhiig cusub baa Kulmiye lagu shubaya annaga u taagan murashaxiinta golayaasha qaranka iyo golayaashu shacabka waxay u metelaan shacab ahaan uma metelaan reer ahaan waxaanu haddaanu nahay murashaxiinta xisbigan Kulmiye ee golaha baarlamaanka idin ballan qaadaynaa kuwa iyaga soo baxa inay idinla shaqeeyaan dhammaantiinba waxaan farayaa shacabka Kulmiye taageerayaasha xisbiga Kulmiye waxaan farayaa waxaynagu hadhay dhowr ka maalmood waxaynu u baahannahay inaynu gallo tartan hufan oo nadiif ah oo xalaal ah oo dadka isu soo dhaweeya xubno ka mid ah golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo iyaguna la hadlay dadweynihii kala duwanaa ayaa ka warramay muhiimadda ay leedahay qarannimadu iyo in la helo golayaal wanaagsan gacanta ku xaqiiqaysan codka gacanta kalena nabadgelyada ku ilaalinaysan waynu la xisaabtamaynaa musharaxiinteena waynu la xisaabtamaynaa waxaan leeyahay musharaxiinteena u adeega ummadda waxaan u mahadnaqayaa kuwa baarlamaanka u shaqeeya sida ay diyaarka u yihiin waxaan u mahadnaqayaa kuwa golayaasha deegaanka gobolka u sharaxan waxaynu ka rajaynaynaa hawshaynu u dironnay inay noo qabtaan waxaynu ku taabagelaynaa qarannimadeenna inaynu kaga mid noqonno caalamka sidaa loo fakiro waa guulaysanaysaan golayaashiinna qaranka ee deegaanka iyo wakiilada musharaxiinta soo codka siin maysaan waa soo codka siin maysaan Kulmiye ha noolaado Soomaaliland ha waarto ha jirto aad iyo aad baan u hambalyeynaya taageerayaasha xisbiga Kulmiye sidii dhaqanka u ahaan jiray sida layaab kale ee ay maantana u qaadi weynay khayriyadii layaab ma laha caadi bay Kulmiye u ahayd waxaynu doonaynaa in sidaa doorashada lagu galo ayaan la Cabdullaahi Jaamac warbaahinta caalamiga SBC magaalada Burco.